wararka naga soo gaadhaya gobolada iyo degmooyinka dalka waxaa ku jira xafiisyadan ayaa waxay qayb ka ahaayeen kuwa xisbiga kulmiye maalmihii ugu dambeeyay ka furanayay magaalada Berbera waxaana saaka la daahfuray ilaa 10 xafiis oo xisbiga kulmiye ka furtay xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera kuwaas oo ay bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ay kareysay gudida ololaha ee xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta xisbiga ayaa saaka si wada jira xafiisyada soo furayay iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Berbera ay si weyn u soo dhaweynayeen diyaar garowga ay ku jiraan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaana sheegeen in ay barbar taagan yihiin xisbiga kulmiye isla markaasina ay codkooda siin doonaan maalinta doorashada ee fooda inagu soo haysa goobo kala duwan oo xafiisyadan laga iba furayay ayaa halkaasi waxa hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin isugu jirtay gudida ololaha ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga ee degmada Berbera البحنمada ee udgoonka ee quruxda ee xariirta ee carabta iyo hindida iyo Soomaalida isdhextaala waatan ku dhashay ku koray walaalahay waa kuwan waa carab waa hindi waan idin soo dhaweynaynaa kaalintiinan xisbiga idinka siinaynaa markuu soo baxo guusha Ilaahay idankii waxaan idin siinaynaa saraakiishiina carabta iyo hindida waa ballan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aysanayna musabbixi iyo kulmiyana way soo baxayaan insha Allah aqalkiina waan idin furaynaa sidaa daraadeed waxaan idin leenahay halkaas ay nooga bilaatay ilaa maalinta doorashada waynu wada shaqaynaynaa waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa inaanu soo dhaweyntaana soo dhaweyseen iyo sidaa ugu heelan tihiin ee diyaarka ugu tihiin inaad codkiina siisaan xisbiga kulmiye iyo musharaxa Muuse Biixi Cabdi soo diyaaru ma nihin inaynu maanta Muuse codkeena siino soo diyaaru ma nihin si caruurteena iyo iskuulkeena iyo waxbarashadeena iyo caafimaadkeena ma uga shaqeeyo dalka halka la soo gaarsiyo oo uga sii qaado dhammaan waxaan salaamaya baabulooshikan soo abaabulay reer kulmiye waxaan maraynaa xafiiskii 7aad aynu xariiq ka jiro saaka degmada wada jir dhammaantiin aad iyo aad baan u faraxsanahay xafiiska nagu soo wareejiseen sida ay soo abaabusheen insha Allah waxaan rajaynayaa maalinta codkana inaad saa u soo baxdeen oo soo bixi doontaan sida maanta u soo baxdeen waxaan rajaynayaa maalinta codkana inaad u soo baxdaan soo sida maaha mowqifkeena inuu Muuse Biixi kursiga ku fadhiisano codka siino xafiiskeenan kula balamayo dadka degmada Berbera ku nool inay codkooda iyo xuduudoodaba siiyaan xisbiga waxa kale sheegaya inaynu ugu hiili karno xisbigeena kulmiye farteena iyo kaarkeena iyo codkeena yahay in guryaha xarqaha laga tiro ururada iyo dhalinyarada iyo haweenkaba walaalayaal waxaan idin sheegayaa marka hore horta Muuse Biixi Cabdi waa nin aan taariikhdiisa hore markayna ka sheekeen waxa weeyaan waa ninka ku suntan ciidamada biliiska ee amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland 300 ee askari ee ugu horeeyay ninkii wasiirka arrimaha gudaha Muuse Biixi Cabdi ee soo safay halka maanta waxa ay sharafa inaan joogo xafiiska kulmiye xariga looga jarayo xaafada Barwaaqo waa xaafada qoondheer aan u leeyahay 30 sanadood baan deganaa waa maalihii kulmiye dadku waa kala beero waa beeri kulmiye Barwaaqo warsaw sida maaha codkeena aynu siinaynaa kulmiye soo maaha arrinka inoo yaalla waa ballan qura ballanku waxa weeyaan maalinta doorashada awal kulmiye idinka taageeri jiray iminkana idinka taageeraya waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay dareenkooda iyo taageerada u hayaan xisbiga kulmiye qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo ku xidhnaan doona xafiisyada saaka xariga laga jaray waxa weeyaan annagu waxaan codkayaga la siinaynaa Muuse Biixi ayaan la garab taaganahay naasoo sidaa ma aha hindidii carabtii isku daba dhacay oo kulmiye raacsan baaliyalka wata mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi iyo Abdulrahmaan Saylici waxaanu leenahay annagoo taageero buuxda siinayna xisbiga kulmiye hawaaro warso codkeena ma siino
socodkeenna ma siino xafiisyadan ay mas-uuliyiintu saaka xadhigga ka jaraayeen ayaa waxaa sidoo kale ku jiray kuwo ay furteen dad iyagoo carab iyo hindiya oo asal ahaan ka soo jeeda magaalada Berbera isla markaasina ahaa dadkii ilbaxnimada iyo sidoo kale ka qayb qaatay xadaaradii kala duwaneed ee ay soo martay magaalada Berbera oo iyaguna luuqadahooda ku taageeray in ay taageersan yihiin xisbiga talada dalka haya ee kulmiye وكل قوتنا وكل نفوسنا ان شاء الله دغمدبا كسو دواده حفيزك بيش عربتي هنديدا كلميه دغمده بربره بيش عربتي هنديدا ورخي aan weegnay kastaba weegnay maanta kulmiye isbihi abdi inaanu doorano oo aanu cobayno waxaanu taageersanahay xisbiga kulmiye una codan deynaa maalmaha doorashada waxaanu sidoo kale aanu barbar taaganahay xisbu xaakimka talada dalka haya ee kulmiye mas-uuliyiin kala duwan iyo taageerayaal iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa dhammaantoodba sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan diyaar garowga iyo abaabulka uu xisbiga ku jiro maalmahan ka hadhay ololaha doorashada mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland ayaa munaasabad qada sharaf ah u sameeyay dhalinyarada xisbiga kulmiye gobolka Togdheer munaasabadan oo lagu qabtay Hotel City Plaza ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah gudida kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer xildhibaan maxamed cali xirsi obama oo ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada ku booriyay inay ka shaqeeyaan guusha xisbiga kulmiye waxaana hadalkiisii ka mid ahaa waxaan filayaa waxa waqti loo baahnaa cududina dhalinyarada ama haween ha noqdeen ama dumar ha noqdeen oo waqti aynu muujin lahayn inaynu guul aad u baaxad weyn aynu gaadhnayn dadka gaaraya sameynayaan guusha xisbiga sameynayaan runtii waa idinka waxyadana halkan fadhida gudidii campaign-ka oo iyaduna luckily aad ma taqaanaa idin hor fadhida oo gudida loo soo igmaday in ay campaign-ka qaabayso guusha inay qaabayso in dadka lagu shaqeynayaana runtii de waa dhalinyaradiinan istiraatiijiyadda iyo sida qaabka loo gelayo kula iyaga idin sharxi doona oo insha allahu tacaala inta ka hadhay waxaan filayaa idinkaa yeelan doona wada shaqeyn xubno ka mid ah dhalinyarada xisbiga kulmiye oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin la shaqeynta gudida kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer dhalinyaradani waxay ka kooban yihiin xisbiga kulmiye ee gobolka dhalinyarada ka jirta oo gudoomiye uu yahay Abubakar Carabileeye waxa ku jirta dhalinyarada heer qaran oo anigu aan ku jiro waxa kale oo ku jirta dhalinyarada forum ah waxaan oran karnaa inta waa midi almost gobolkii Togdheer dhalinyarada oo cidi ka maqnayn ayaa halka fadhida alxamdulillaah rabbil caalamiin waa midi nin walba inta wuxuu representative wuxuu ka yahay more than 500 teenage ama yooda oo magaalada jooga maanta doorashadii wax yar bay naga haray 13ka November maanta inta ka hadhay xataa muddo bila ma Soomaaliha ma 18 bil ka yar ololihina waxa inaga hadhay dhowr cisho 12 bisha sida mu bilaamin marka de waxa inoo yaalaaba waa inaynu hawlaheena diyaarsano diyaar garowno si fudud u dhaqaaqno oo ugu diyaar garowno gudoomiyaha hore gobolka Togdheer Cabdu Axmed Ayir iyo xubno kale oo ka mid ah gudida ololaha doorashooyinka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ku dheeraaday kaalinta ay dhalinyaradu kaga jiraan dalka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aqoonyahaankii baa tiin caqliga gobolkana waa tiin awoodii iyo quwadii gobolkana waa tiin waxaanu jecelahay noqon mayna kuwa shaqeynaya awoodda iyo shaqada aad baanu idinla kaashanaynaa aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla kulmo waana jeclaan lahaa runtii dhalinyaradiina bal inaynu in badan kulanno waqtiyada electioniska waxbaa laga faa'iidaa dadku waxbay ka faa'iidaan inuu ka wada dhadhegsannahay horena loo sheegay kolleyba waa diyaargarowgii kambeynka iyo ololaha dhalinyaraduna 90% wax kasta oo la qabanayo iyadaa hirgelisa سعيد سلبان نور تيفيga qaranka Somaliland magaalada wararka kale daawadayaal idin hayno waxa kamida qaar kamid ah dadweynaha ciyaaraha xiiseeya ee ka soo qayb galay daawashada munaasabada ciyaartan lagu xusayay sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay aasaaska garoonka kubadda cagta ee xaafadda Biibsiga ayaa ka waramay qiimaha ciyaaruhu ay leeyihiin iyo kaalinta garoonkan Biibsigu ka qaatay dhiirigelinta dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta dheesha
maxamed maxamuud diridhabo oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii xulkii gobolka waqooyi galbeed xilligii dowladii maxamed siyaad barre ee 80-maadkii iyo Saleebaan Xasan Daahir oo ciyaartaasi ciyaarayay ayaa ka faalooday ciyaartan loogu dabaaldegayo garoonka kubadda cagta ee Biibsiga. salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin amma bacd marka hore waxaan salaamayaa bahweynta dhalinyarada ciyaaraha jecel ee waxa weeye taageerayaasha garoonka buuxa ayaan salaamayaa marka xiga ciyaartan waa ciyaar munaasabadeed waana ciyaartii sanad guuradii labaad ee garoonkan asaaska ama furitaankiisii garoonkan Biibsiga aan ilaaha garoonkan waxa weeye Maxamed Saalax aan loogu magac daray garoon ciyaartaas waxa ku wada ciyaaraya labada kooxood oo odayaal ah oo qaybaha habeenadii ku ciyaara ama bulshooyinka ku ciyaarta garoonka ah marka labadan kooxood baan nasiib wanaag maamulku u garteen in ciyaartan ciyaaraan ciyaartiina saasay ku bilaabmayso insha Allah waana ciyaar waxa weeye kulaba dhaxmar doonta labada kooxood ciyaar saxaaftinimo waxaynu halkan u joognaa ciyaarta munaasabadda sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay furitaankii garoonkan Biibsiga ciyaartaas oo labada kooxood ee odayaasha cuslaaday dhaxmaraysa dhalinyarada cuslaatay aan idhaahdee odayaal raalliga ahaada ciyaartan ayaa waxaa soo qaban qaabiyo ugu talagalay maamulka garoonka Nuur Dhalaax iyadoo ay ugu tala gashay in ay odayaashaas ciyaaraan annagoo anigu gaar ahaan waxaan ahay ciyaartoydii lagu furay garoonka markii la furayay 2 sano ka hor maanta oo kale 2015kii marka waxaan leeyahay ciyaar wanaagsan odayaasha macallimiinta u badan baa nala ciyaaraya ciyaar wanaagsan salaam alaykum waxana ay ku bogaadiyeen Nuura Xuseen Dhalaax oo agaasimka munaasabadan iyo aasaaska garoonkan lahayd ciyaaryahan Yaasiin Aabayare iyo Cabdilaahi Maxamed Koosaar Abujaas ayaa iyaguna ka waramay natiijada ciyaartaasi ay ku dhamaatay isla markaana halkaasi isku bogaadiyay iyo qoladan soo agaasinta xafladda runtii waxay ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan ayaanay ka soo qayb galeen dad waaweyn oo magac ku leh kubadda cagta waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciddii soo agaasimtay kulankan oo ahaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay garoonkan Biibsi Stadium oo runtii ay hayaan dad mudakara oo aqoon u leh xirfadda kubadda iyo faa'iidada ay leedahay jimicsigu marka runtii waxay ciyaar aad u qurux badan guushuna annaga ayayna raacday waana ku faraxsanahay baan ugu faraxsanahay maadaama ay sugi yimaadeen ciyaartooy kamid ah ciyaartooygii hore ee kubadda cagta ciyaar jiray waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama maanta laga badiyay waanu hambalyeynaa waxaan u hambalyeynaa waayo waxa ciyaarayay la ciyaarayay mudane Maxamed Diridhaba oo haddii aanu ka badin lahayn loodo lahaa odaygii baa laga badiyay marka waanu hambalyeynaa maadaama annaga labada qaadanana tafudud gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta mudane Maxamed Amiin Cabdi ayaa bogaadiyay aasaasaha garoonkan kubadda cagta ee Biibsiga Nuura Xuseen Dhalaax labada kooxood ee ku tartamaya koobkan munaasabadda garoonkan loogu dabaaldegayay waxaana uu ka waramay qiimaha ciyaaruhu ay leeyihiin iyo qorshaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland waxa weeye anfac uu leeyahay garoonkani dhammaan waxaan u malay waa laga wada dheregsan yahay iyo bulshada sidoo anfacay iyo dhalinyarta iyo ciyaartooygii hore ee Maxamed Balki ka fariistaba oo iyagu laftigoodu aad uga faa'iideystay waxa weeyaan tartankan sanad guuradii koobaad waxa loo qabtay ciyaartooyga daada yar ee fudud sanadkan Maxamed Balki waxa lagu xusay ciyaartooygii hore waxa ka muuqday meeshan ciyaartooy badan oo maanta hadda tababarayaal iyo rag badan oo bulshada magac ku leh oo professor waxa weeyaan Maxamed Balki dhamaantood ku hambalyeynaya garoomada noocan ah ee Maxamed Balki loo soo kordhay منافعات كل اللي تلقوا دماوين وكود درسنا هاي وحوي هدي دراسات السمية مكا عارف ما لهان يبول شاهان با وحبذا بينوسو كليين كيستكله وحا هالكاسي لقد واقعي نتيجة abaalmarinaha la kala gudoonsiyay labada kooxood iyo ciyaaryahanada kale markaa maanta waxaan soo gabagaboobay koobkaas aan ugu talagalnay xuska waxaana ku guuleystay kooxda Lions waxaan bixin doonaa jaysado 3 kooxood aan siin doono waxa kamid ah goolkii ugu horeeyay garoonka laga dhaliyay waxa dhaliyay Saleebaan oo inoo jooga ugu badan garoonka ka dhaliyay Kamaal وحوين معلنكي معلمينتا odaygii odayaasha Diridhaba kooxda tuug waxaan leeyahay koobka ay leedahay koobtankooda oo soo qaadi doona koobkii kooxdii kale Rashid
sabootin loo sameeyey 40 arday oo ka qalin jabiyay kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa oo lagu qabtay Hotel Safari magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday maxkamadaha dalka xiraalinta guud ee qaranka hormuudka kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa macallimiinta jaamacadda Hargeysa xubno hore u dhameystay sharciga jaamacadda Hargeysa marti kale iyo xubno ka socday komishanka xuquuqul insaanka dawladda iyo komishanka madaxa bannaan ee Human Rights-ka wararkan kulakaasi waxa hadallo dardaaran iyo mahadnaqa ka jeediyay Raaqiya Ibrahim oo ka socotay komishanka xuquuqul insaanka dawladda Soomaaliland waxay tilmaantay sida loogu baahan yahay in la hagaajiyo lana xoojiyo hanaanka sharci ee dalka muddadii badnayd waqtigii badnaa ee soo siiseen ahmiyadda aad saarteen inaad barataan wax u taraya dalka wax u qabanaya oo ah sharci marka laga hadlayo iyo cadaalad horta inta badan waxa la yiraahdaa in dalalku waxyaalaha ay horumar ka gaaraan ama waxa horumar laga maraa cadaalad ama maxaan ku raahdaa sharci haddii dalka sharci yaqaan ay yeesho xitaa waxa badan bay soo kordhin karaa Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ka socda maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa isaguna tilmaamay sida loogu baahan yahay baahida sharci ee dalka taala loona baahan yahay inay ardaydani muujiyaan karti iyo dadaal ka koobanto mid waa law obedience sharciga loo hoggaansamo oo la adeeco iyo law enforcement sharciga la dhaqan geliyo labada waxa horeeya law obedience-ga in sharciga loo hoggaansamo oo qof kasta uu adeeco law obedience-ga waxa weeye waa mas'uuliyad qof kasta saaran individual kasta way saaran tahay qof kasta waa laga doonaya inuu hoggaansanaado sharciga laakiin dhaqangelintiisu cid bay dee bulshada u wakiilataa oo qarankeena cid buu wakiishay hay'adaha aynu wakiilano ka shaqeeya oo ciddii sharciga jabiso tallaabo ka qaadaysa Axmed Dalmar Ismaaciil gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa isaguna uga warramay waayaha sharci ee yaala maxkamadaha dalka iyo sida loogu baahan yahay inay muujiyaan dadaal iyo dulqaad markii shaqada la tagay rag badan oo ahaa ayaa dhiig ku noqday sababtay dhiig ugu noqdeen waxa weeye dad la dhaqan iyo dad la socod iyo soo dhaweyn iyo akhlaaq mid way yeelan waayeen dabeedna waxa la yidhi kan eediisu waxa laaliyo waxay taraysaa ma jirto markaynu macal wax kumad garaynayno وين نسي أخلاق لو كم تجرينه مركو قف عينو قابل إنه إنه وين إنه أقوال لو وين الاحترامه مركو إنه شغوين كشغل وين تدك سود وينه وين إنه كل احترامه تدك شغل إنه جهري إنه حق حقنا أفلقادين إنه كسكوت دينه إنه كأقوال سرينا إنه وحكبرنا شغلنا وين إنه كسمايسنا إنه يمن مايسون وأنا جاي كل شرعية قانة كل فرصة ولو يتاجن تاعي عاوة أنت نصح فينا وقال أنت بسين لاركم لكن waxay tahay runtii arrin la tabayo saxaafadda iyo sharci yaqaanada runtii waa laba tiir oo muhiim ah oo dalkani baahi weyn u qabo Xasan Faarax oo ah la taliyaha dhinaca sharciga komishanka doorashooyinka ayaa isaguna ka warramay waayaha sharci ee dhinaca komishanka iyo sida loogu baahan yahay inay la socdaan hanaanka doorasho ee Soomaaliland la taliyaha sharci ee komishanka doorashooyin baa nagu soo fool doorashooyinka waxa hagaya oo qaabeynaya waa sharci inaad doorkiina ka qaataan aad ula socotaan asxaabta hadday noqoto hadday musharaxiinta noqoto hadday noqoto guud ahaan systemka ama habraaca ay u dhacso doorashadu oo aad bulshada fahansiisaan xuquuqda qofka muwaadinka leeyahay inuu codeeyo inuu si nabadgelyo ku codeeyo inuu si bilaadhiba waxaa hadal dardaaran iyo waana u jeediyey hormuudka kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa Maxamuud Xuseen Farax wuxuu dardaaran iyo waana u jeediyey 40 arday ee dhameystay kulliyadda sharciga anoo ku tirinaya ardayda ka soo baxday kulliyadda sharcigu inay dhiig wanaagsan u yihiin bulshada kuna faraxsan kooda wax dhaliilaya iyo kooda difaacaya labadaba anigoo ku faraxsan waan hambalyeynaya run ahaantii waayo haddii ay taasi meesha ka baxdo waxa la rule of law waa inuu shaqeeyaa rule of man uma baahnin waxaan u baahannahay isku xukunka sharci maxaa loo baahan yahay xaqiiqo jirta inaad qirto gabadhu waxa abaalmarino la guddoonsiiyay ardayda u sareysay dhinaca sharciga sidoo kale ardaydu waxay abaalmarino guddoonsiisay macallimiintii iyo martidii kale ay u garteen inay shahaadooyin mudan yihiin
qaybo ka mid ah culimaadudiinka dalka ayaa kulan ay qabteen waxay kaga baaqeen in laga fogaado wax kasta oo nabadgelyada dhaawacaya si doorashadu ay ugu dhacdo habkii la doonayay. xubnahan culimaadudiinka dalka waxay si qoto dheer ugu iftiimiyeen shirkoodaasi jaraa'id qiimaha culus ee nabadgelyadu ugu fadhido qaranka Soomaaliland iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in qayb kasta oo ka mid ah bulshada si xilkasnimo ah ugu gudato waajibaadka ka saaran sibay yiraahdeen doorashadu aynu haatan gudagelina ugu qabsanto si hufan oo nabadgelya waxaana ugu baaqeen dhinacyada ay taabanayso mas'uuliyadda hawshaasi inay sideeda uga soo baxaan hadday noqoto axsaabta ku tartangelaysa doorashada bulshada iyo xukuumadda iyagoo si gaara ugu soo jeediyay axsaabta inay ka fogaadaan ficilada xanafta leh ee wiiqaya amniga. waxaynu gelaynaa waqti doorasho doorashadaasina xumad bay leedahay kaliya wax walba inay lama taabtaan ka noqoto nabadgelyada iyo diinteena islaamka inaynu ilaalino cidda koowaad ee siidhiga u haysa waa komishinka in dadweynuhu komishinka ay la shaqeeyaan oo xisbiga ka tallaabsada qawaaniinta iyo aadaabta loo dhigay dadweynuhu ay kula shaqeeyaan oo xigmadda koowaad ee nagu qabanay isu imaatinkan culimmadu baaqa ay u gudbinayso siyaasiyiinta iyo dadweynaha iyo komishinkaba wuxuu daaran yahay dadweynuhu kow cidda lagu tartamaya waa iyaga dhammaanna doon baynu wada saaranahay suu nabigeenu cadeeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh oo nebigu wuxuu ku mithaaliyey khalqigaba in doon saaran haddii doontaa saddexda dabaqa qolada ugu saraysa ay damcaan doontiiba inay gunta ka dalooliyaan waxaa waajiba dhammaan intii kale inay gacanta ka qabtaan haddii haddaba gacanta laga qabto ciddii doontan la saaran yahay daloolin lahayd waa la wada nabadgelaya haddii ninba wuxuu doono sameeyana dee baashii waa la isla degayaa markaa awalan gacanta dadweynaha ayuu amnigu ku jiraa gacanta dadweynaha ayuu ciday dooranayaan ku jirtaa markaa dadweynaha waxaan leenahay danteena koowaad waxa weeye nabadgelyada madaxda tartamaysa ee xisbiyadana waxaanu leenahay dadkiina marka aad taageerayaashiina la hadlaysaan ugu dara in aanay wax shareecada ka hor imanaya samaynin. walaalayaal sida la wada og yahay waxaynoo hana qaaday oo muddo dheer aynu ku naaloonay nabadgelyada oo geeska Afrika wax inala qabaa aanu jirin waxa lagama maarmaana doorashada dhacaysa dhammaan ragga musharaxiintii waa inamadeenii weeyaan dad meel kale inaga yimi ma aha qof walibana codkiisa xor buu yahay cidii uu siinayo iyo cidii uu u codeynayo hase haatee waxa loo baahan yahay si nabadgelyo oo sharafi ku jirto oo aan cayl ahayn oo isxagxagasho lahayn in la isugu codeeyo oo la isku doorto. wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa go'aan adag ka soo saartay jaadkii Soomaaliland uga imanayay wadanka Yemen kaasoo ay sheegeen inuu halis ku yahay caafimaadka bulshada sida warkan inoogu hayo wariyahayaga Axmed Cismaan Batuun. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in dalka laga joojiyay imaatinka jaadka laga keeno dalka Yemen kaasi oo maalmihii u dambeeyay laga soo daabulayay dalka aynu xuduudka biyaha wadaagno ee Yemen. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye oo uu heliyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaraddaasi ayaa hadal si wada jir ah u siiyeen warbaahinta waxa ay ku sheegeen in dalka Yemen uu ka jiro xanuunka halista ah ee daacuunka kaasi oo kumanaan ruux ku dilay bilihii u dambeeyay dalkaasi sidaa daraadeedna ay go'aan ku gaadheen in dalka laga joojiyo soo galitaanka jaadkaasi khataraha caafimaad ku wareegsan yihiin. ugu horeyn agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay. wasaaradda caafimaadku waxa ay halkan ka shaacinaysaa in ay jiraan xanuuno faafa xanuunada waxa kamid ah xanuunka loo yaqaan cholera muddadan u dambeysay waxa soo soconayay qaad ka yimaada dalka Yemen kaasoo uu ka jiro xanuunka loo yaqaan daacuunka ama cholera dabadeed waxa weeyaan xanuunkaas waa xanuun halis ah soona faafi kara kuna soo faafi kara haddaba waxa ay wasaaradda caafimaadku markay dhinacyo badan ka eegtay ay tix raacday xaaladda ka jirta waddanka ay eegtay xaaladda aynu galayno ee doorasho aynu ku jirna eegtay isku socodka dadka iyo
populationku siduu u soconaya la wada eego waxa weeyaan xaaladaasi waxaanu u aragnay wasaaradda caafimaad ahaan inay tahay xaalad khatara dabeedna waxa weeyaan arrintaasi waxaanu soo garanay aanu dhammaystirnay in la joojiyo qaadka ka imanaya yeman agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa isaguna fariin u diray bulshada cunto iyo kuwa ka ganacsada qaadka laga keeno dalka Yemen kaasi oo ay hareeyeen khatar caafimaad oo ugu horeeyo xanuunka daacuunka oo dalkaasi ka jiray muddooyinkii u dambeeyay waxa jira sahaminta aanu sahaminay waxaan u sheeko hayno ugu badan imika dhulkan xuduudka leenahay ee wadanka Yemen aynu jaarkanahay badda yar inoo dhaxayso inuu yahay xanuun kalooraha uu ka jiro oo noocan waliba adduunka hore looga aray uu ka jiro oo dhimashadu ku badan tahay marka qaadka Yemen laga keenayo la yiraahdo ama magacu doonaba hal ahaadee Yemen laga keenayo waxa weeye wasaaraddu way ka digaysaa inaan la keenin oo bulshada caafimaadkeedu halis badan u leeyahay annagoo aan qaadadka wadanka yimaada iyo khudaarta timaada midna si gooni ah una xayeysiin midna celinaynin laakiin waxaa jirta halis caafimaad halista caafimaadna waxa weeye annaga ummadda ugu bulshada ugu mas'uula qof baa laga yaabaa inuu ka faa'iido laakiin inta aynu ku seegano ayaa ka badan ka keenaya iyo ka cunaya iyo ka soo dhoofinaya iyo ka cashuuraya inta waxaan leenahay anigoo wasaaradda maaliyadda warqad u gudbin doona inaan goobaha kastamada lagu cashuuri karin qaadkaas uu yahay halistiisa leeyahay in laga digtoonaado maciishooyinka qoyan ee ka imanaya wadanka Yemen waa fariin caafimaad muwaadin haddaad tahay kii cunayay haddaad tahay kii soo qaadayay haddaad tahay kii keenayay waa fariin caafimaad ku soo diray dani kugu jirto carruurtaada dani ugu jirto qoyskaaga dani ugu jirto qarankana dani ugu jirto aad baa mahadsantahay dalka Yemen ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa hareeyay dagaallo iyo qasas siyaasadeed kuwaasi oo jahawareer ku riday bulshada ku nool dalkaasi Yemen waxaana farabaas ku hayay xanuunka khatarta badan ee daacuunka kaasi oo ka dilay kumanaan ruux ururka dhalinyarada ee Bulshakaab oo hore uga tirsanaa xisbiga wadani ayaa si rasmi ah ugu soo biiray xisbul xaakimka kulmiye iyadoo xaflad soo dhaweyn ahna loogu qabtay magaalada Sheekh sida uu warkan inoogu soo diray wariyahayaga Faysal Aadan Ismaaciil munaasabadan oo saaka lagu qabtay magaalada Suuqsada ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay ururka dhalinyarada ee Bulshakaab oo ah urur dhalinyaro oo ku midoobay wax soo saarka dhinaca beeraha ururka dhalinyarada ee Bulshakaab oo hore uga tirsanaa jiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray xisbul xaakimka kulmiye munaasabadan oo ahayd mid siyaasadeed loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horreyn hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee magaalada Suuqsade waxa sidoo kale halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay salaadiin uqaal dhalinyaro iyo haween iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh waxa muddooyinkii u dambeeyay laga dareemayaa deegaanada Suuqsade iyo Jidda Bari ee degmada Sheekh u diyaargarowga oo laha doorashooyinka fudud inaanay reer Suuqsade mar ay hadlaan aanay laba carab lahayn go'aankii hore maalintii aynu halkaa ka cadaynay maantana aynu kii u sheegayno saw sidaa maaha inagu haraynu arrinkan u qaadannay dubur baynu ku qaadanno aynu ku jirnay halkan baa guddoomiyihii maanta madaxweynaha musharaxa ku ahaa baynu ku casuunnay oo inoogu yimi oo aynu ballan qaadnay ballantii miyaynu ka baxnaa waxa weeye yaan layna qaldin dumarka iyo carruurta iyo dadka la qaldayana war waxa weeye si wacan wax loogu sheego waxaynu taagannahay bacad baynu taagannahay hadalkana waynu soo koobaynaa innagu horaynu ballanqaad u samaynay musharaxa xisbiga muuse biixi cabdi ayaynu marka horeba u ballanqaadnay iminkana ballanqaadkii uun baynu xoojinaynaa inaan waxba inaga leexan baynu halkaa arkaynaa halkan maanta xafladda ballaadhan aynu ku soo dhowaynayno waxa weeyaan inamada soo diga rogtay xisbiga u soo diga rogtay kulmiye kana soo diga rogtay wadani rag iyo dumarba way leeyihiin waxa calaamadoodu waxay ku baxday waa Bulshakaab halkaa haddaan yar ka sii dhaqaajiyo waxa weeye innagu naf iyo maalba waxa weeyaan waxaynu la barbar taagannahay muuse biixi cabdi sow sidaa maaha annaga oo si mug iyo miisaan leh oo taageero xoog iyo xoolaba leh ku garab taagan muuse biixi cabdi wax yar baa ka hadhay ayaynaa noqon dameertii malabka sidee markii u dambeeyay saxaabadii daadisay
dhowr iyo 20 ishaad doorashadii muuse ka hadhee kaadhakaynu ilaashanno u diyaargarowno wixii aan ballan qaadnay inaan ka soo baxno war ma ismaqlaynaa waxaa laydinka doonayaa codkii ay ku soo saarteen jamaal cali xuseen ee ay ku soo saarteen cabdishakuur cidin ina muuse biixi cabdina ku soo saartaan warkaas ma dhan yahay waxaa maanta sharaf idiina haddaad tihiin reer suuqsade waxqabadka ballaadhan ee waddooyinka leh ee iskuullada leh ee xanaanooyinka leh ee ka muuqda magaalada berbera inay sharaf idiin tahay inaa codkiinnii aad ku doorateen cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin inuu halkaa tegey oo wax ku qabtay ayaa reer suuqsada sharaf u ah marka ku xigta anigu kama baqsani kama werwersani reer suuqsade halkuu raacsan yahay iyo himiladoodu halkaytay iyo damacoodu xagguu u jeedo runtii iyo xaqiiqdii waxaan qirsanahay waa dad la odhan karo waxa weeye ummad isku xidhan oo caaqilkeeda iyo madaxdeeda iyo minjaheedu ay isku wada xidhan yihiin weer keliyana wada yidhaahdaan qof keliyana u yidhaahdo oo aan laga warwari karin kaadharkiina maxaan sheegay cid kale aydaan gacanta ka gelin oo idinku urur ahaan inta isu guulguushataan kaadharkiina u urursataan sidaa ugu codaysaan oo maxaan sheegay mar walo kasta aad isku duubnaataan oo aad mar walo kasta iswacyi gelisaan haddaa haweenka tihiin inaad u codaynaysaan muuse biixi cabdi aanu taageerayno xisbiga kulmiye maalin dhaweyta halkan waxaa soo maray xisbiga waddani gabadh ayaa idinku tiri loodii waxay jabisay oodii iyo balkii innaku loo maynu ahayn balla maynu jabin dad baynu nahay aan daaqaynin laakiin loo daaqa haddii aan kaga gudbo salaanta waxaan si aad iyo aad u soo dhawaynayaa anigoo ah guddoomiyihii degmada shiikh ee xisbiga kulmiye waxaan si aad iyo aad u soo dhawaynayaa dhallinyarta ka soo diga rogtay xisbiga waddani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye magacoodana la yidhaahdo bulshakaab waxaan idin leeyahay gacantiinnaannu u baahannahay garabkiinnaannu u baahannahay waannu idin soo dhowaynaynaa si aad iyo aad baannu xusbiga idinku soo dhowaynaynaa xusbigu waa xusbi loo siman yahay kii iminka yimiyo kii hore ugu jiray waa isugu mid kasta waan karaamaynaynaa intaa haddii aan halkaa kaga gudbo waxaan idin farayaa hankeenna iyo himiladeenna iyo higsigeenna intuba inay ahaato xusbiga kulmiye oo aan la garab taagnaanno hiil iyo hooba mas-uuliyiin ka tirsanaa xisbiga waddaniga ayaa sheegay inay ka baxeen xubinnimadii xisbigaasi iyagoo shaaciyey inay ku soo biireen xisbul xaakimka kulmiye sidoo warbixintani inoogu hayo wariyahayaga cabdiqaadir cabdilaahi nuur jaamaca sidiiq cali oo ka tirsanaa golaha dhexe xisbiga waddani iyo cambe aadan maxamed oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga waddani ayaa warbaahinta u caddeeyey inay iska casileen xisbigaasi waddani islamarkaasina sheegay in ay ku biireen xisbil xaakimka talada dalka somalilan haya ee kulmiye labadan mas-uul oo ka soo jeeda gobolka daadmareedh ayaa sharaxay sababtii ay isaga casileen xisbiga waddani waxaan maanta caddaynayaa inaan ka baxay xisbigii waddani kuna biiray xisbiga kulmiye haddii aan dub ugu noqdo waa markii ilaa 16 sannadood waxaan gacanta ku hayay maamul xisbigun waxaan ahaa sagaalkii guddoomiye u horreeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal u magacaabay waxaan ahaa ninkii caalanka ka taagay gobolka daadmareer oodweyne waxaan ahaa agaasimihii xarunta dhexe xisbiga udub ninkii ugu muddada dheeraa maanta ka hor kamaan bixin weli xisbi kama bixin laakiin maanta waxa aan ka baxay xisbigii waddani waxaan ummadda u caddaynaynaa in aanu maanta dhisayno musharax muuse biixi cabdi oo aan u arkay siyaasad ahaan markaan eegay ku qancay inuu yahay mustaqbalka maanta badbaadin kara Soomaaliland waxaanu ku tashanay ambaanu go'aansannay oo maanta bulshada reer Soomaaliland u cadeynaynaa inaan guud ahaanba iska casilay xusbigii waddani aan ka tirsanaa xubinnimadiisii iyo xilkiisii iyo golihiisii dhexaba runtii wax hawl yar nimantii si hawl yar u dhaqaaqay amba maalin ku cadhooday amba wax yar ku duday ma nihin wuxuun baanu siinaynaa dareenka bulshada reer Soomaaliland waxaanu sanadii bari ka tashanaynay aan xusbigii kaga go'aan qaadanay inay tahay un arrin kolley culayskeeda leh runtiina waxaanu
u diga roganaynaa oo aan badh lahayn oo aanaan qarinayn oo aanu halkan ka caddaynaynaa xusbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxa aanu u tagnay waddanina geeyey sahan bay ahayd sahankiina mid nala soo oodmay oo runtii aanu saaka dee faro maran ka sidno deegaan ahaan iyo shakhsi ahaanba weeye waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah odayaasha gobolka daadmareed oo sheegay inay ku taageersan yihiin nabadan mas-uuliin iska casilaan xisbiga wadani islamarkaasina ay ku biiraan xisbiga talada dalka somalilan haya ee kulmiye casilaadda ay iscasileen nimankaas saraakiisha ah ay u dega rogteen xisbiga muxaafidka ee kulmiye waa ku garab istaagnahay waana ku dhisaynaa xisbigana sidaasaan labada gacmood isugu geynayna labadaas sarkaal ee iscasilay waxaa laga yaabaa waa niman aqoon-yahanaa waayo araga baacmushtari iyo siyaasiyiin ahaa waxa ay la guureen waa danun markay dee laga yaabo meeshii ay wax ku hayeen ee ay joogeen ee ay bulshada iyo reerka uga wakiil ahaayeen waxba ku arki waayeen waa mustaxaq inay ka guuraan oo halkay dan u arkaan u guuraan intaasi daawadayaal waxaan ku soo afmeerayaa war waxaanu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aanu idinka haynay warkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Naasira warkan war lamida intaynu iskugu iman doonno waxaan idinku dhaafayaa isaragtimo qaldambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh